munaasabadu waxay ahayd mid si weyn loo soo agaasimay isla markaana lagu abaalmarinayay ciyaartooydii ka qaybgalaysay tartanka feerka adduunka oo ka dhacay magaalada Istanbul. qeybaha kala duwan bulshada sida haweenka, ganacsatada iyo bulshada magaalada ayaa goobjoog ka ahaa madashii barnaamijkan uu ka dhacayay. safiirka safaaradda Soomaaliyeed ee wadanka Turkiga Ambassador Jamac Aydid iyo gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadankan Turkiga Mudane Sheekh Maxamed ayaa ka mid ahaa mas'uuliyiintii goobta ku sugnaa. Cabdirashiid oo ku hadlayay magaca ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkan Turkiga ayaa si kooban uga hadlay faa'iidada ay jaaliyaddu ay u leedahay bulshada Soomaaliyeed. dadka Istanbul jooga, safiirkeena, ganacsatadeena, ardadeena, madaxdeena, hadda wadankan waxaan filayaa wadankeena labaad buu noqon doonaa. saa darteed jaaliyadeena inaan garab istaagno, unitkeena inaan ilaalino. waxa weeyaan ruuxa inoogu tayo badan haddaan madax ka dhigano oon la shaqayn weyno faa'iido ma gaadhayo, laakiin ruuxa inoogu tayo hooseeya haddaan madax ka dhigano oon la shaqayno guulo waaweyn baan gaadhaynaa. Richard Moore oo ah macalinka ciyaartooydii Soomaalida ee tartanka feerka ayaa u mahad celiyay safiirka iyo waliba jaaliyadda oo barnaamijkani soo qaban qaabiyay. I just wanted to start off by saying thank you to the ambassador for the warm welcome. It's amazing to travel the world internationally and be welcomed by Somali communities everywhere around the world. It kind of makes you feel like you're just still at home. I think for the few people that went to see Ramla Box, you get to see kind of firsthand that we do need a lot of support for the Somali Boxing Federation, but more importantly, we need Somalian referees, judges and officials. So that's not young Somalian people, that's everyone here being part of kind of boxing education and putting yourself forward to be part of Somalian boxing. gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadankan Turkiga Mudane Sheekh Maxamed ayaa hadal kooban goobta ka jeediyay. soo dhawaada sida u dhantiin ugu horeeyo safiirkeena wadanka Turkiga safiir Jamac Yare soo dhawow marka muxuu ahaa ii sheegay runtii wajiga maartay noo muuqda iyo kii awba noo muuqday mid ka si fiican ayaa noo muuqda maxaa yeelay safiirka Jamac Yare markii uu safaaradda yimid runtii aad iyo aad baan ugu faraxnay imaatinkiisa saddex sababood aawadeed. midda koowaad horta isagaan la soo raadiyay wuxuu loogu yimid Istanbul markaasuu macnaha noo soo bandhigay yani waxa aan u baahanahay iyo yani waxa safaaradda yani ay Soomaalidu u qaban doonto iyo hamigiisa ayuu noo soo bandhigay. runtii aad iyo aad ayaan arinta u soo dhaweynay waayo qof saan noogu yeeray asaga ka hor muusan jirin oo saa xogta noo warsaday. marka labaadna intaas oo jeer buu nagu soo laabtay runtii asagoo jecel in dadku ay midoobaan gacmaha isqabsadaan. Soomaalidu waxay dhahdaan dadkan wax yar qaybsan wax badan ma qaybsadaan. marka walaalayaal midnimada iyo sharafta iyo karaamada waxay ku jirtaa midnimadeena. marka aad iyo aad baan macnaha maaragtay arintaas u rakisayaa maxaa yeelay dariiqa dheer aad soo marteen oo ilaa hadda ilaa iyo sanad iyo wax la jira jaaliyadda ay socotay intaas waa la soo kufayay waa la kacayay intaas waxaa la iska ilaalinayay dadka macnaha maamulka iska ilaalinayeen in macnaha ama qof Soomaaliya la dulmiyo ama in qof Soomaaliya xaqiisa lagu tunto inta waa la iska ilaalinayay. safiirka safaaradda Soomaaliyeed ee wadankan Turkiga Ambassador Jamac ayaa gabagabadii hadalka qaatay wuxuuna jaaliyadda ku amaanay waxqabadka muuqda ee la timid tan iyo markii dhidabada loo aasay isaguna dhinaca kalena aad u amaanay ciyaartooyda feerka doorkii ay ka ciyaareen tartankii feerka adduunka ee ka qabsoomay magaalada Istanbul. jaaliyadda xalay odayaasha waa ka wada hadalay muddan suganay oo sida uu sheekhu sheegay maamulka la dhisay ku meel gaar buu ahaa waqti dhaaf badanna waa dhacay. jaaliyaduna muhiimadda inoo leedahay idinku wada ogtihiin marxalado badan oo ay soo martayna waynu la soconnay. xalay markaa waxaanu ku heshiinay in doorashadii la qabto in dastuurkoo la soo diyaariyey oo waliba si fiican loo soo diyaariyey xoogaa yaryar oo annaga aanu soo calcalaamadinayna aanu soo gudbino oo iska waxyaalo uun farsamo ah wey.
marka kulli ragga guddiga halkan ka fadhiya guddiga dastuurkan isku hadhi doona marka insha Allah sida ugu dhaqso badan in guddiga doorashooyinka la qabto guddi doorasho loo dhan yahay haddii dawladda aad tiraahdaan doorasho cadaalad ha la qabto oo loo dhan yahay idinkuna waxaan idin leenahay doorasho cadaalad loo dhan yahay ha la qabto waxaan aad iyo aad u hambaleynayaa walaalaheen oo ka qayb galay feed caalami ah oo Istanbul ka dhacay oo caawa martiino ah Adam iyo Rabla iyo macallinkooda Richard aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waa ku faraxsanahay waxaan u rajaynaynaa tartamada dambe ay galayaan in ay guul insha Allah magaca Soomaaliya Cabdi Bilaberigu orodada qaaday calanka Soomaaliya la dhaxorday garoonka Soomaalida idinku calankii la dhaxordaya garoonkan idinka rabnaa dhawaanna aragno insha Allah idinka iyo dadka kale ee sportiga ka ah xidigaha ee Soomaalida ay adduunka ka ciyaara waxaad rajaynayaa mar walba inaad calanka kor u qaadaan waxay idinka laftigiina sharaf idin tahay inaad muujisaan dal leedihiin oo calan leedihiin bilada sharaf lagu sharfayay ciyaartooyda u tartamaysay dalkeena isla markaana ay soo diyaarisay jaaliyadda ayaa la guddoonsiiyey ciyaartooyda iyo waliba macallinkooda waxaana biladahaasi guddoonsiiyey ambassador jaamacaydiid Salman Jamal Saeed TV-ga caalamiga Universal magaalada Istanbul.